وهذا أسكري ولي بنا أسكري مني عند هاي إنه حاه ماشي هلا شخص عدي الماذا أنا كوايو إمو ويبري ولا لو لعك حتى وكوس ودرا إنها يجدي بنوده magaalada Muqdisho in mudooyinkii dambaba aad looga sheekeynayay in la waayo caruur yar yar oo magaalada laga waayo kuwaas oo qaarkood dib loo helo qaarna aan dib loo helin haddaba sheekadan waxay qusaysaa xaalad cusub oo nala wadaagayo walaalkay Maxamed Cabdi Cali oo loo yaqaan yaabkeeda leh oo ka soo gaartay kadib markii uu arkay gabar luntay gudaha meel ku dhow xerada Xalane Maxamed Cabdi soo dhaw waxaan jeclaan lahaa bal ugu horeyn qisadan aad nala wadaagayso oo ka dhalatay markaan fiirino baafinta la xiriirta gabdhaha ama caruurta Soomaaliyeed lagu waayo magaalada Muqdisho ayaan jeclaan nala wadaagto aad u mahadsantahay ayaan la adeeg iyo wali salaama daawadayaasha ha noolaato maalin khamiisa koodi bishii 9aad sanadkan aan ku wada jirno 2020 ayay qisadan ugu dhacday 2020 sanadkan sii dhamaanayo maalin khamiisa ku beegneed koodi bishii 9aad sida dadka inta badan u yaqaaniin garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho saddex albaab laga soo galaa albaab waa number 4 midna waa Marina Gate midna waa Medina Gate howla shaqo anigoo airport ugu socdo ayaan waxaan ka galnay school police ama Marina Gate checkpointiga xindaab waxa yaala marka amisom nabad sugid iyo military ugu yaalo marka gaari aad galaysid laba albaab laga galaa albaabna waa VIP albaabna dadka shaqaalaha iyo dadka shaqooyinka u aadaya ka gala garoonka diyaaradaha gaarigii marka gashid qaybta VIP da lama marin qaybtan kala mareeyay waxa qasaba marka ilaa 6 ilaa 7 baawur inay istaagto kadib eeyga la soo bixiyo oo hubiyo in gaarigan wax ku xireen in kale dadka saaran darawalka injiga u furaa qaybta hore gaariga waa la daminaa albaabada loo wada furaa waa la wareega sun kala soo furaa sida adigoo dhoofayo mashiinka dadka oo raajada la soo maraa waa soo lugeynaysaa jagboonti ka xageeyo oo bir ku xiran tahay oo fariisanaysaa marka ku sugaysaa ilaa intuu ka fasaxayo ninka eeyga wato marka gaariga sugaysa adiga waa lagu soo baaray jagboontiga jaa waa soo martay wajaagabka telefoonka meesha dhigaysa raajada meel qof kasta faansan dadka aad u wada yaqaan marka qofka gaar loo baaraa gaariga gaar loo baaraa qofta waxa baaraya mashiinkaas furaha iyo waxa wadatid xagga lagu soo marsiinaya waxa laga baaraya bambooyin iyo hub la mari kartid hatta furo waxa qaylinayo gaarigana eeya hubinaya marka meesha anagoo fadhino Soomaali ugu badneen iyo waxaan u maleynaa laba qof ajnabiya meeshaan fadhinay ayaan loo yarkii garawal marka waa la fasaxay baabuurka anaga gaarigeena gaariga ugu horeeyay markii la fasaxay inta aan la fasaxin ka hor marka la fasaxo bira jirto oo ninka ugu dambeeyo amiso meesha ka qaado intuu la qaado wiil Soomaaliya marka aniga iyo yar kale oo Bashiir la oo inta kale oo ka tagnay oo howlo shaqo u soconay iyo wiil kale oo CDG isa soconay meeshaan taagneen gaariga yimid oo meesha ku kala wareegay wiil iyo gabar yar oo aad u yaraa meesha ka soo degeen marka wuxuu dhahay albaabka geeya طبعا وان marka aniga gaari yaro Soomaali wuxuu taqaana markeeto ama wax samta lamid ah gaari cad oo si fiican u saxayso runtii markaad ka gudubteen controlka waay anaga controlka gudub gaarigeena ku gudo jiro jagboontiga eeyga baarayo laakiin anaga waa marnay gaariga marka soo fasax kadib gudaha ku jirnaa markaas aan kula hadlay xindaabka xalan ku jirnaa marka meeshaas waxa ka xageey waa baabuur amaan waay baabuur amaan wixii soo jeegareeyay waa isku dhamaad xalan ku jirtaa hadii meesha baas gareesid wiil iyo gabar yar oo ayaan la aan ku qiyaasay dabcan 7 iyo cunugo jira 4 ilaa 5 ka soo degteen oo dabcan diif ka muuqato boor ka muuqdo dabcan aaba Soomaaliyeed ah waa walwale isla marka caruurteeda isu soo warintay mid kale meesha aad looga cawda ninka wuxuu dhahay aan ka xasuustaa nin madooba ama amisom ama kamida ciidamada nabad ilaalinta u jooga dalka ay dhaxu dhahay ilmaha siigi ayaan loo qataraha ka imaan doono kadib aan galay dib xilligaas uma fiirsanin waa u tagi doonaa ilmaha laba cunug ay ahaayeen oo laga dajiyay gaariga uu ka soo dajiyay wuu kala wareegay oo iska dhaqaaqay gaarigan ayaa waday gaariga wiil Soomaaliya wado ayaan la markuu kala firiyay oo dhaqaaqay gaariga la fasaxay aan ilmiyan ku dhigay marka dhanka uu ka yimid uu noqday jagboonta kala muu baahno birta hadii ayaan la xamar waa tagtaa ama waa taqana baaritaanada hadii xindaabka birta inta ka joogtid oo aad dad dhigtid waa kala wareegi kartaa halkaad waa ku laaban kartaa baaritaanka ilmu baan gudaha ku jirto marka ninkan gaariga guduhu ka yimid isla guduhu u noqday wuxuu rabay caruurtan in banaanka loo saaro marka taa macnaheedu waxay tahay caruurtan gudaha laga keenay airportka gudaha xalana laga keenay xindaabka amisom nabad sugida wax dhan way baas gareeyeen gudaha ku jira wiil gabar yar aad u yar ahaayeen daadooda maxaa ku qiyaasleed gabadhaas aan ku sheegay 7 wiilkana 4 ilaa 5
واي weliba waa weydiiyey adeer inta maxaa kasoo doonteen wiilkii ila socday iyo yar kale way qalqaleen yar kale oo ila socday seedigii aan ku sheegay waxaan ku sheegay waa serious واي gaarigii kale raacay oo imaado raacay ilaa xamar uu joogay caruurta dhibaatada ka imaatay waxa ogaa aniga yar kale ku dhignay biyaan wadaan siiyey waa wadna caruurtii waxaan dhahay adeer number ma taqaanaa ha aabeeda aan wacay halo gabadha la hadal gabadha ma taqaanaa ha ana dhalitay joogtaa suuq xoolaha xalanay ku jirtaa aabeed ayaan aan u jeedo isku dhaxyaacay askariyo baba askari miyaan ku dhahay inta caruurtaada ku arkay fadlan soo doona intaan ku heynaa marka wiilku dhalay bas gabadho dhalay واي marka hore waxaan maleynaa inay isku aabayiin kadib aan ogaa doonaa واي بس لا شيء مثل dhalan Waa. abti ilmeedina haynaan jecelahay Waa. wiilka ma hadli karin aad u ilaala gabadha ma sha Allah nabarka abeed korka xifsaneed iyo nabar kale ayay ah lambaradii oo wacay teleefankayga ayaan le intaan sii socday waxa ay soo wacday hormuudka ma qiyaasi karo waa daalay ayaan isla soo wacay gudahan geliyay qadan soo siiyay aabaheeda igu soo celiyo wuxuu waa soo socdaa maama kale ayay ay soo wacday waa soo socdaa markay imaadeen gudaha inaan soo gali karaan marka ayaga واي saacada 9 saac ay bari ahayd markay ilmaha arkay 11 saac marka hadii mar eega baxo gaari soo gali karo gudaha ma jiro marka gaarigaagii aad saarneyd waa gudbay Aniga waa gudbay. seediga raacay mame yarkay gaariga kale raacay aniga ilmihi qaadnay Waa. meel cuntaan geeyay oo maqaayad ah oo magaca dabcan ma xasuusta laakiin oo Easter laro Easter dadka muqdisho jooga waa yaqaan ama dadka elaboorka Easter aan qada kasoo siin ilmihi wahay adeeryaal iyo abtiyaal iyo eedooyin dad badan ay imaadeen oo kuwa amso maxay u soo sheegeen wiilasha nabad sugidda Soomaaliya u joogo in ilmo laga soo xaday ninkeena oo elaboorka ku jiro ilmihiina elaboorka ku jira numberkaana aawato rag nabad sugidda ka tirsan xataa isoo wacay dhahayo inaan ku aragnaa rabnaa banaankaan joognaa aniga qatarta ayaga ay ka ululayaan ayaan la iima muuqato waxaan ka ululayaa wiil iyo gabar yar oo meeshan lagu soo daayay saacada ay sii gobolka sii dhacayo maqrib sii naqanayo dhibaatada ka soo gaari karto ciidamadan ajnabiga ah adigana marka meesha maxaa u tagtay inaad safarto mise qof aad dhaweynayso danooyin dana tikidan soo bedelayna u galayna gudaha واي marka tikid bedelaysa inta badan garoonkay ku yaaliin saasaan u galayna marka hoola shaqo tiiskaagii wax kaaga cuslaaday arrintan dhibaato kale ay u coslaatay waan Waa. isdahay intii caruurtan yar oo Soomaaliyeed inta ugama tagi kartid واي dabcan ayaa la markaan sii fiiriyo dadkaas waxay ka wululayeen marka kadib ay ugu dhalatay adma bogeyn xaaladda ma ogeyn xaaladan iyo dhibaatadan marka qaar waa maqli jir laakiin ayaan le way sii weysa damiirka in ilmihii meesha joogo oo masaakiin oo caruur aan meesha uga tago eedu marka waxay noqotay ilmihi la waayay ilmihii la waayay xalanay ku jiraan aniga ilmihii watay camal beeca loo waayay maadaama adiga aad aabeed ku tiri aabeed xalanaan kala soo hadlaya Waay. askari waliba askari miyaan dhahay in waxa ah meesha hoola shaqo u socday ilmaada anaa ku hayo imo uu ibari walaalow lacag xataa waa ku soo diraa cidnaha iga dhiibin u dhah ayaan loo taa xataa waxaan ku sii adkeenayaa family problemka dhibaata ka timaado Waay. waxaan qiyaasay gabadha iyo wiilka isqabay oo caruurta gabadha dhalay islama nooleen gooni isu wacay nidahayeen aabeed han uga dhiibin annagu waxaan ku adkaystay in gabadha maadaama aabeed ay sheegatay family problemka ayaga inay xalistaan laakiin aniga gabadha aabeed aan ku wareejiyo ana aabeed inuu yahay in kala maqal laakiin numberka aan numberka qaana ayada tira aabahe waa heblo saas ayada taqaana marka qofka numberka la qofka numberka la u dhiibaya adinka kadib ka xaajooda wixii family iyo waxa aad tihiin iyo dib uga xaajooda hooyadu wax kula iga dhiibin ha iga dhiibin iyo ayadii soo ay waxay ninkaas gacanta ha ka saarin waa annagu waxaan ku walwalay in gabadhan horta aan ku siimo qof kamida waalidiinteeda siiba aabaha ay sheegatay kadib ayaga yaqaanaysa numberkayga asaas u siiyay sababtoo way shoogeen dadka markay maqleen ayaan le ilmi xalana lagu hayaa walal uma dhineen maxay tahay sababta markaas sababtu waxa la sheegay ayaan le in xalana ilmaha lagu problemiyo ama lagu qasho something like that ama laga dhoofiyo waa xamar problem ka jiro way arinta hadda Mustafa uu ka dhawaajinayay oo barnaamijka lagu horeeyay gabar kale abtiga la jirto oo ayadana dugsi loo diray xaafada Tawfiiq yaaqshid ilaa hadda wallahi ayaan le 3-4 sano ka horeeyay lama problemka aad u badan yahay 6 sano 7 sano jirtay ilmahaas markiiba mar la qaado lama arko waay tan markii wada marka gabadhii meelaad geysay maqaayad cuntaad siisay waalidkan sugay way soo waceen amiso ma soo gali karaan marka nabad sugidday u maadeen waxay dhaheen nina ilmaheena haayo eelboorkoona ku haya waa kana numberkayga soo siiyeen marka ninkii soo wuxuu dhaa ilmaha soo bixi keen waa soo baxna gaarigan soo qaadanay gaariga gadaalan ku soo baarkeen marka dhulugan markaan laabanayno inaan ku galno way waa soo baarkeen waa imaanay kuwa xindeen marka gaariga soo qaaday ilmaha xaq waa loo diiday hadana gaariga uu soo dhaqaajiyay banaanka markaan u soo baxnay ninka albaabka taagnaa oo nabad sugidda ka socda wuxuu dhahay ilmaha waa xaday hadalka aan ku sheega waxaan ku dhahay nin mas'uul ahay indhaha anaha ii shidanin oo iska waal marka saacadan la bilaa waa xirinta u dhahay ilmaha afduubanaysa ilmaha wadanaysa
waxaan ku dhahay ilmahan ma afduubanaynin damiirka iyo soomaalinimada iyo muslimada isii inaa caawiyo waxaan afduubanayana ma laha ni waa qaldan tahay haddaan afduubanaan ma keenlayn anigana saa ila hadlaysid waa qaldan tahay waa xiran tahay waxaan ku dhahay meel kastoo aad jeceshaan kula aadaa saldhigga nakeen dad kale ay mideen wiilka aabeeda soo wactamay oo dhahay wiil walaalkii iga soo hormaray fadlan igu wareeji nambarkiisa keen waa u dhiibay nin kamid ah dadka la socda dadkii mid ayaan ku qiyaas ilaa 20 qof dumar iyo waxay u badnaayeen waxay iska soo jareen nimankaana wiil ilmahan xadayeen waay adiga problem kala gale iyo inaan leedaho inta istaaga yaa idinka dameeyna dad kale la waco meesha nimid gabadha marka adeerkeeda ku wareejis gabadha inta adeerkeeda ku wareejinin waxa la horta in la baaro waa inuu soo farxumeeyay inuu dhibaato u geystay waay haddii xataa ayaan ilaahay ma ka dhigin laakiin oo ninka ilmaha keena aan ka qabto oo dhibaato geysan lahaa aniga dush saarnaa lahayd walow inta badan marka dambe la isbaari lahaa iyo wax kale la mari lahaa meesha marka gabadhi waa la baaray telefoona laga duubay waxaan aad u mahadcelinayaa dadka meeshaas jooga ciidamada nabad sugidda militariga qaar kamid ah waxay soo jeediyeen in haddii xataa dadkan ilmaha lagu wareejiyay markay qaadaan dhibaato geysan karaan inay horta wax duubaan ninka taytankiisa ayaga cadeen laga rabo magaciisu sheegay hebel hebel xilligaas duty shaqadaas ku jiro saan hebel hebel waa soo joognaa ilmihiisa la wareystay ayaan la ilaahay wuxuu ugu badbaadiyay marka fiicanta ama caawinaysid ilaahay ma ku dayacayo gabriya hadlayso waxa kale ayaan loo kaasoo iloobo oo ka sii naxdin badan marka la weydiisay ku gasheen alla garoon waxay dhaadaysaa iskaga soconay booyad meelaan ku soconay waxaan tagnay dhahday meel kuleel badan sida dadka ay sheegayaan marka xeyndaabka diyaaradaha garoonka markay tageen diyaarada meesha taagnayd motor kuleelkeeda ay soo carareen saddexda galabnimaheed gudahay galeen ayaa ku galeen waxay gabadhu waxay leedahay u soconaa iska galnay meel kula aragnay tir marka sa u soconno marka waa meesha diyaaradda booyada qashinka qaadaan marnay tiri kadib nin madow baan la hadlay meesha hoostiisa aan marnay dhahday gudahan galnay marka ilmaha waa soo lumeen xarada iska ilmaha si oo kama u soo galeen dugsi howlwadaag inay deganaayeen aan jecelahay si u socdeen ay meesha soo dhex galeen ayaan marka qoladan xalana joogto dadkii dhalay iyo wax ma raadinine albaabka ku soo tuureen wiilka Soomaaliga Kenya aanu Kenya anaga meelo keen dabcan ma aqaana marka banaanka ku tuuray kaliya wiilka Soomaaliga markuu meesha dhigo ayaan markaa bixiysid waa lugay karaa wuxuu ugu tala galay inta hadana jagboontiga wax ku soo laaba lahaa inuu iska dhigo oo dhax lugeeya marka meesha waxa ku aadan dadka Soomaaliga jooga magaalada Muqdisho ay qano isbitaal lagu magacaabo Yardameeli meesha ku yaalo xagga marka bajaajada iyo waxyaabo badan ka baxo meesha uu talagal inay lugeeyaan laakiin dameerku uu sii way xarana laga keenay xarana gudahay ka soo ninkan guduhu ka soo bixiyaan waay meesha jirkooda wax dhibaato laga ma helin markuu baaray yar maxamed la dhaho uu fiiriyay waalidiintooda mobile ka duubay wuxuu sheegay inay bad qabaan meesha aan ka sugay inay mahad celi dhibaato aan la kulmayaano gabadha yarada la wareystay maxay tiri gabadha si cad u sheegtay waxay tiri wiilkan waa noola keenay ninaan soo qaaday meesha saangal gudaha kuleelka marka aragna aan soo baxnay nin madow aan la hadlay yarkan Soomaaliga kalena soo waday dhaxday oo intana keenay intuu naga qabtay waxa kale ayaan la ku badbaaday meesha kaamirooyina ku xiran dabcan markaadan wax qalad gelina wax badan ku ilaalinay amba ku difaacay waxaan ku dhahay waxa la jeegaray kara kaamirooyinka meesha noola keenay halkaan ay ahayd xindaabka amisom xalanay gudaheeda ahayd waay marka hadii ay jiraan ilmo dhibaato loogu geysto xalane ilmaas lama heleen hadaa ani qof dhibaato wata ahay lama heleen gudaha la sigila jaa gudaha ku jireen ma iyaga laftooda macnaha xalana haday tahay meel ilmaha dhibaato absolutely lama heleen sax waay marka ilmaha gudaha lagu arkay waa iska soo saareen waa iska soo bixiyay ayaan waxa dhici karo marka qaar in si qaldan wax loo fasiro ama si wax loo sameeyo qoftii la waayba la iska xaqi aad waxa loo dhahayana dad cadaan iyo waxa degan iyo ajnabi laga wadaa waxa dhici karta ilmaha in lagu dhibaatiyay guriga kugu dhagan aadan ogeyn واي أنت مركز أصلا وغلق بحد waxaa uga lug baxay in xataa oo magacayga iyo numberkii iyo qof kale oo damiin aan abtigay lagu coolo dhaho inta ma laga heli karo dhibaato badan aan kale calaa xal anigoo marka hore iga ahayd caawin dhibaato aan kale laakiin muu sheegtay in ingiriis ka timid waa la socdeen hay taas ugu sidareed ina wadataa lagu maleenayo laakiin ninka waxa aad ugu mahad celinaa aabeed nin akhyaar oo ahaa wuxuu dhahay ninkan ilmaha uu xaday ama uu dhibaateenay mana soo wiciliheen ani marka ayaan le dabcan kalsooni oo mid kale waxa ay hor muuqatay wiil gabar yar oo meeshan ku jiro xilliga 9 saac iyo bargalino ama 3:30 ay tahay dabcan ayaan aad u walwalay marka waalidkaad waxaan aqsareed ba waalidkaas la caawi ilmi soo lumeen gabadhu waxay sheegtay in dugsi loo diray dugsiga ay ka soo dhunteen ayadii wiilkeeda adi maxaa darantay marka ilmo yar yar oo intaas la eg oo baabuur laga dajiyay oo ninkii ka dajiyo ka noqday wax crime kuma muuqan ayaan xilligaas crime ima muuqanin xilligaas waxa ay muuqatay ilmahan beelahada joogo ee banaanka yaalo ee u baahan caawinta
ويران قاريجي كان نقضي الوح وربحمد قسم اسمه لا وحيكون في عناد مية وحيكون في عناد قاريجا كاني أو ألعبت ilmaha كاني wiilka aan ku sheegay saydigii ayaa yarkiis yaqaanay waa weydiiyay كمبني هبل وكشقة ياخذ حمرك هدي لو سيبها راتر عوالي هلي لها وربحنا ولا هلي كرا ولا هلي كرا لكن حلي قاس أنا إيه موقن إن دبعت ماشي أنا يكيم هادونت لكن عقد عروت ويل كان يدي قبل دانير كبد باد وأبوه دي والد كود قعنت كسر واي هدي المها لقيها لحرد حالنا أو سيد موقتين كان أنتوا سوق هذا وربين ويسك سارة وكرميش لقى بحاي محي يوعي والد كود يا وعي قرضا أمازون ويلك حلين المذوبة يسوع ديبي yarka aniga shaqada aan qabto waxay ahayd inuu qabto yarka Soomaaliga ee ilmaha meesha ku dajinay laakiin waxa dhici karta asna inuu ka cararay dhibaatada aniga galo kale ayaan wuxuu ugu qaatay 3 saac ilaa 4 saac taleefankiga xataa la soo waco oo la dhaho ilmihi aaway dhibaato aan la kulmo aawinta aan sameeyay dhibaato kala kulmay laakiin alxamdulillah kadib markii la baaray waalidiintooda imaadeen adeerkood dad akhyaar dad bini aadamka shanta farood ilaahay ismid maahan dadka saas ay kala duween dad way dareemay in caawin aan wacnay dadna waxay dhahayeen ilmihi uu soo qaata laakiin beeco uu ku rabo ku waay war beeca ilmaha ku rabo maxay tahay marka xalana ilmaha lagu maxaday meel walba lagu xadi karaa meel walba xalana horta ilmaha lagu maxaday ilmaha dhumayo banaanka muqdisho laga keenaa hadii xataa xalana la geeyo inkastoo cadeen aanu heen lama rabo mugta wax been la sheego ilmaha gudiga ku jira hadii la xadayo dadkaas aan horta la xadi lahaa adaab arkay ilmo laga soo saaray wiil Soomaali keena abu waalidkood u wacay هذه لكن dhibaato oo dadka waxa qabaan oo jooga magaalada Muqdisho in xalana ilmaha lagu dhibaateeyo ma laga yaabaa dad kale oo ilmaha xada inay rabaan inay ku raatirtaan waana iyaga laga shakid waa wax dhici karo waana wax dhici karo in gudaha wax lagu dhibaateeyo maxaa isleedahay marka ilmaha sabab loo xadi karo ayaan ku wadayac waalidkii maxagis horta family problem markuu imaado dhibaatooyin badan ay imaado waxa u dhahay waxa waaye hooyadii aabaha Afrika ama Soomaaliya dadka joogo markay kala tagaan horta ilmihi meeshay ka baxayaan aabiyana nolol kale sameysana hooyadii nolol kale sameysana qurbo kale marka la kala tago hatta inta badan ilmaha waa la soo korsada hadda wadamadan oo la joogo kale amnigooda iska sugan oo ma aragtay hooyadii inta u aragtay cunugaada markuu 13 14 jir hatta ina iskool geesi ka soo wadid waay xaga laakiin ilmihi saaka dugsiga loo diray laga moorhaayo ma soo laabanin oo dhibaato kasto beelaha u yahay aad oo maasan tahay maxamed cabdi cali daacad ayuu ahaa وبرنامج مرتين وقوة هذا ودي لكم أسنتين داوشة برنامج كان وحقيب كي هاي ولا عكوس عبسون والدين بدنا يقبان وبهن آد لوجد ده وربهن ترى آد وهذا الشو حالة كتاعن مقالة المقدسة مدة دير أيه لسوجر تعرين تنواه إلا وهي عقول بدن الصوماليات واللغة يا جودة مقالة المقدسة لقى يابين سيابا قلدن لوجا فايدستو الدون كمركل لقوا حجرة ودمنا أي اللغة يا عرور ودن كان جونو إنجليز كمانو بعرور على وياه مركا عرور تسلوين أيه وحي سلك كهين كران ضد بيئة بابولن له oo laga yaabo carruurta inay ku shaqeystaan ama siyaabo kale u isticmaalaan marka waxay u baahan tahay in loo istaago oo wacyigelinta la xoojiyo marka horena mas'uuliyadda cid iskale lagu xisaabtamo ah in waalidku uu carruurtiisa gacanta ku hayo oo isha ku hayo oo mar walba la socdo daawadayaal mahadsantihiin waan ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan intaynu mar kale kulmi doono waxaan ilaahay nabadgala wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baahan noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo galino waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid. Hey guys, it's me Jane again, your favorite wig maker. I'm here to show you another